وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد waxaan ka bilaabaynaa aayadda 8 ee ka mid ah suuratu nahl. suuratu nahl waa suurada lagu sheegay shinnida aynu xalay ka soo qaadanay dariska insha Allah taala. waxa aynu ku jirnaa nicmooyinka Ilaahay subhanahu wa taala. nicmooyinkaas oo aan meel dheerba laga doonaynin agteena yaala indhaha aynu ku akhri karayno dareenkeena aan ka fogeyn. nicmooyinka suuradda aad iyo aad ugu nuuxnuuxsatay waxay daliil u yihiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay ka cibaado yeeshay haddii ixsaan iyo wanaagayd cidda ugu mudani وعد كوو إحسان بلا وهو الله سبحانه وتعالى. والله جعل لكم إلهي وحيدية للضديه من بيوتكم بريهين سكنا دقنا شو ذي كدقا وجعل لكم وحويدية من جلود الأنعام نعمو ليدا هرقهيدا وحيدين كأبورو إذن كسمي بيوتا بريو تستخفونها afudaydsanaysaan oo idin fudud yawma dha'nikum maalinka aad guuraysaan iyo geediga wa yawma iqaamatikum iyo markaa nagidihiinba wa min aswaafiha wallahu jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay min aswaafiha suufka idaha dhogorta idaha wa awbaariha iyo nicmoolayda wabarkeeda loo yaqaano raanta geela ama gaameelada iyo wa ashcaariha nicmoolayda timaheeda afaafan ilaahay alaabu idinka siiyay wa mataacan bagaash waxa lagu raaxaystay ilaa xiin ilaa intii muddo ka ah. wallahu jacala lakum dadii ilaahay wuxuu idin abuuru idin sameeyay mimma khalaqa waxa uu abuuray dhirtii wixii lamida dilaalan harar buu idinka sameeyay kulaylka ka harsataan wajacala lakum min aljibaal buurahana ilaahay wuxuu idinka sameeyay aknaanan meelo godada oo sida guryahoo kale wajacala lakum dadii ilaahay wuxuu idin yeelay saraabiila dhar iyo hu taqiikum alxar kulaylka idinka ilaalisa dabcan iyo qabowgaba wa saraabiila iyo qalab kaloo la xidho taqiikum ba'sakum balaayadiina idinka ilaalisa macnaha dhibaatadiidii soo gaari lahayd xabadda iyo dagaalka waa qalabkii dagaalka kadalika saa aragteen yutimu nicmatahu calaykum ilaahay nicmooyinkiisi uu idin dhammaystiraya lacallakum tuslimuun si ay ilaahay isugu dhiibtaan oo u hoggaansantaan fainta wallow haddaad sii jeesataan oo ilaahay u mahadnaqi weydaan oo isu dhiibi weydaan fainamaa calayka albalaaqu lmubiin nebi maxamedow dushaada waxa saaran gaadhsiina caddee gaadhsiiya oo ka xil-ow يعرفون نعمة الله dadku ilaahay nicmadiisi garte thumma yunkirunaha way diideen oo kuwa soo mahadnaqeedii diideen oo ku gacan saydeen wa aktharuhumul kaafiruun intooda badan waa gaalo. intaas oo nicmo ah waa nicmada sakan halkanina nicmooyinka hore waxay la soo xiriirayeen doonigii iyo sharaabkii iyo raaxadii kala duwanay. nicmadan iyadu waxay la xiriiraa dhinaca marka laga guriga iyo hoyga marka ilaahay waxa uu wardadii gurigii ilaahay wuxuu idinka dhigay sakan gurigii sakan buu ilaahay idinka dhigay sida oorida joogtaaba sakan ay wahay sukuun iyo xasilooni looga helay. marka islaamku halka uu ka taagan yahay qadiyada guriga iyo alma'wa iyo maskanka ayaa aayadu ay tilmaamaysaa inuu yahay maxay
gurigu waa maxay waa meeshii lagu nasanayay laabudda an takuuna albuyuut linnaasi xaraman aaminan meel xaram aamina ah ayaa islaamku ka dhigay siduu qofka islaamku guriga sakan uga dhigay cid kale oo uga dhigtayba ma jiro intaynaan taa gaadhin ka hor nicmadan ilaahay uu sheegayo yacrifuha allaaji'uuna waalmusharaduun nicmadan waxaa aada u garanaya dadka qaxa iyo kuwa la eryanaya cadowgu barakiciyo nicmadan qof hiiladiisii iskaga jira oo biyihiisii diiranaa ku maydhanaya oo aan weligiiba qaxoontay aragoon barakicin ma garanayo ninkii qaxay wuu garanaya dad iyagoo iska ladan oo guri weyn ku jiro oo maqsino badan lahoo kadaayo hoosaas intay tegeen meel boorka uu ka duulayo daqiiqna lagu miisayo waa kii dumarkeenu dhowriya siddeetankii timaha iska gaagin markii daqiiqdii iyo ay isu qabsadeen boorkii xagaaga iyo saliiddii cunnada la marinayay ay dhahan wallahi kuwan inaan la sii wadi karayn waaya iminkana dad baa sidii u qaxaya walaalaheena ha dhowaadeen hase dheeraadeen marka nicmadaa sakanka uu leeyahay qofkaasi aada u dareemaya oo macnaha waxyaabo badan oo qofku aanu maanta dareemayn baa kusoo baxsanaya waxaaba dhacaysaba qofku meeshuu fadhiisan lahaa xamaam u fadhiisan lahaa inuu waayo waatay odhan jireen markii bannaan la isugu baxay aan geedba lahayn bay idhahdeen hana faydanin hana fogaanin hana faydanin hana fogaanin macnaha meel loo libidhooba maysid dee dadba ka fogaan maysid waxaa dhacaysa in odaygii islaantu isba haleeli waayeen leanno meel la galaadaaba ma jirtada marka xaqiiqatan nicmadaas waa in ilaahay loogu mahadnaqa subxaanahu wa tacaala oo aad ku cibro qaadataa dadka guryahoodii ka kacay ee bannaanka taagan ee dhirta hoosteeda harsanaya kuwa guryahoodii cadowgu duminaya madaafiicda la dhacayo dee aad iyo aad bay u fara badan yihiin marka taasi waa midh ilaahay lagu mahadnaqo qofkaasaana dareenaya halkuu sidaa hore aynu u sheegnay islaamkuna sakan buu guriga ka dhigay sakan ee lagu nasto qofku tacabkii soo maraya dhibaatadii iyo wixii o dhan buu kaga nasanaya min nicam illaahi tacaala marka waxaa la doonayaa gurigii xagga caruurtaada marka la eego waa inuu sakan ku noqdaa oonay noqon dadku barakicinayo caaqahoo dhib badan oorida laftigeedii marka la eego waxaa la doonayaa inay noqoto iyadiiyo gurigiiba ninkii sakan inay u noqdaan oo meeluu ninkii ku nasto waa inay noqoto sida iyadaba laga doonaya inuu ninkii ugu nasiyo aanu ku dhibin guriga dhexdiisa waxaa la doonayaa bulshada inaanay qofka gurigiisa ku dhibin oonu jaarku ku dhibin oonay xigtadu jaarkii lama ogola in jaarka kugu shiidaya meesha muxuu yahay meeshii uu qofkii galay haddii jaarkii ay ku shiidaan dee sakan miyuu noqonayaa kolba dabaduu soo boodaya wariyayna shiiday dee muuji booliska ha loo yeedho sakan ma noqonayso waxyaaba ugu lacnad badan weeye ee ciqaabta u weyne ay ka dhacayso xigtada xaggigeeda waa inuu sakan jiraa oo ilaahay subxaana wa tacaala dee suuratu nuur haddii aad akhrido waxa uu tilmaamayaa caruurtii kula joogtay guriga ee kuwii waaweynaa iska daya soo qaangaadhaya ayaa la yidhi wakhtiyada qaarkood istiidaan ha weydiisteen aabba ma soo galaa hooye ma soo galaa dadkii kale dabadda ka imanayay baa la yidhi istiidaan weydiista oo waxaad tidhaahdaan assalaamu calaykum aadkhulu siduu nabigu noo jidanaya calayhi salaatu wasalaam markuu aayaadka fasirayo assalaamu calaykum ma soo galaa intaa waa inuu dhaha soomaali ma lagu karibaad u malay assalaamu calaykum ma soo galaa war filadaa dheer annagu ma karayna mana laga furaya misena lagama furayo markaasuu taagan yahay ilaahayna waxa uu leeyahay wain qiila lakum irjicuu farjicuu war haddii la yidhaahdo markaad tidhaahdo ma soo galaa mee ha soo gelina iska noqo un hawl kale ha gelin waxaa la doonayaa gurigii in aan lagu dhibin dadka oo aadaab uu yeesho qofka imanaya halkaasuu isa soo taagaya marka uu garaaco kolka uu garaaco qofkii waa inuu albaabka dhinac isaga taagaa maxaa la diidayaa ishu inay cawrada ku dhacdo oo cawradii halkaa laga arko iscaajuu sameeyo qofkii dadkii argagaxiyo haddii aad garaacayso ku celi 3 jeer markii asxaabigu lahaa marka hore yastansituun yastaslixuun uma ya'danuun cidda guriga ku jirtaa marka u horaysa dhag la siiyo la garaaco way dhagaysanayaan mar labaadkana yastaslixuun waxbay iska hagaajinayaan way iska basrinayaan wixii kala daadsanaa mar saddexaadkana soo socaa la leeyahay waaya maamulkii iyo dowladda ayaa la doonayaa gurigii dadka inay sakan uga dhigaan oo dhagaystayaalla lama ogola dhegta daaqada saara maxaanku idhaahdaa qaar iska socdo oo ama boolis ama maxkamad ka socdo dalam yidhaahdana lama ogola waa mamnuuc weeye
bal nabi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka daaqada kaa soo eega haddaad finiin ku dhufataad ishaba fujiso mag laguguma leh leanna ishaasi waxay ahayd il budhacdahoo daalimadoo meel aanay lahayn aanay xaq u lahayn bay ku dhaadhacday oo ay ku aroortay marka haddii qofkii mindi laga geliyay isagaaba ku hamiyey mar nabigu inuu mid iid ka soo rido wuu la seegaye marka taasi waxay tilmaamaysaa in gurigii uu noqonayo meeluu qofkani aamin ku noqonayo iminka waxay maraysaa kuwa gaalada dulliga ah oo odhan jiray annagaa wax wadwadno oo dadka maaragtay howlaha ugu fiican oo waxaas iska shay waa sidee u yidhaahdeen ay odhan jireen iminka waa taad arkaysa laga qaylinaya gurigiiba kabarad lagu dhajisanaya kabarad yar ayaa lagu nabanaya waxaa la doonayaa halkaa in dadka lagala socdo iyo dhaqdhaqaaqooda waa kuwa xisaabta mucaaridku marar fara badan ka qayliya ciddii laga shakiyo kabarad yar baa lagu nabanaya waa xaaraana oo aan bannaanayn sharcigeenu uu diiday sababtuna waxa weeyaan qofku waxa uu leeyahay xorriyaad badan marka waxaa xorriyaadkaa ka mid ah xorriyatulma'wa wasakan meesha uu degan yahay inuu xor u noqdo meesha uu degan yahay inay noqoto xaraman aamina meesha uu degan yahay inay noqoto meel sakan ah asxaabta qaarkood baa ruux dumar ahoo ay ka shakisanaayeen baa gurigii loogu galaa oo la yidhi waxa ay dembigaasaad qabtaa war dembigaba waxaa kasii weynaa sheegaysaan bay tidhi guriganaad dalam soo tidhaahdeen bilaa'idan diintu maxay ka qabtaa halkiibuu isku taagay ninkii ay la hadlaysay cumuuman aadaabtaa in loo soo noqdo oo maaragtay meesha marka la galayo ay tahay meel guri liita ama buyuutu dacaara ama guryihii xumaanta lagu hayay garsoorku ruqsad soo bixiyey saasoo kale wax shareecadda ilaahay ay banaynaysa waqtigaa ka hor guriga waa inuu noqdaa meel lagu nabadgalo wajacala lakum min juluudi lancaami buyuutan nicmoolayda hargahoodii buu ilaahay gurya idinka siiyey haragga carabtu aad bay ugu ilbaxsanaayeenoo intoo la magdiyo ama la xooriyo sidii masallaha laga dhigo ayaa heensatole laysu marin jiray heensatole iyo tolmo ayaa sidaa la isugu marin jiray sida marada loo tolo bahalkan loo tolo masallaha dabeedna 10 neef haragood intoo la isugu talo la ballaariyo ayaa udub dhexe lagu taagayaa afarta dhinacna qodimaa laga samaynaya waa teendho celinaysa kulaylkii iyo qabowgii iyo roobkaba taambuugii weeye oo qofku meel lagu doonina 10kii neefa xoolaha ay ka dhintay inuu haragoodii isku habeeyay meel uu ka soo waariday ma jiro marka la rarayana dee awrkunbaa karbaash ama qobta looga dhigaya intoo la isku laablaabo dhibaatada ma jirta halka la degana geed baa laga goosanaya marka haragaasi wuxuu idiin noqday guri buu yahay la galo oo teendho ama taambuuga tastakhifuunaha yowma dacnikum maalinka geediga uu idiin fududiyo watan la isku laabay wa yowma iqaamatikum iyo maalinka la nagi yahayba marka la nagi yahayna si dhib yar baa bannaanada looga dhisanaya marka la guurayana waa la qaadanaya waxyaabaha ilaahay ummadda uu siiyey ugumana sheeganaya waxaa ka mid a xagga nicmoolayda wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha afaafan wa mataacan ilaa xiin afaafkuna waa alaab mataacuna waa wax lagu raaxaysanaya ilaa intii muddo ah marka saddexdan aswaaftu waa dhogorta idaha awbaartuna waa dhogorta geela ashcaartuna waa dhogorta riyaha iyo lo-da ama geeslahada shayga loo yaqaano marka suufka idaha inaba waynu nidhaahnaa waaya awbaartuna waa geela gaameeladiisa ama raantiisaba waa la idhaa ad iyo jeer marka uu dhogor dhiciyo dhogor aada u badanba ayaa laga helaayo reer maaragtay miyiga ama geerjiruhu intuu maraboob isu qabadsiiyo ayaa koofiyada laga samaysan jiray innagaba si dhib yar dee meesha kaynta uu taagay intuu dhogortaa geela ururiyaa ayuu ka samaynaya qalab ama wax dhexda lagu xidha iyo xarku saasaa ilaahay uu sameeyey subxaana wa tacaala waxaa kaloo idiin sameeyey wixii uu abuuray mimaa khalaqa noocuu doonaya hada waa wax kastoo har yeelan kara kii aad dhisatay iyo kii ilaahay beeray iyo gidaarkii soo baxay wax walba har buu hadda ka sameeyey harkan wax saalan baad u haysta taynagu meel qabo baynu ku nooloon saxara ahayn laakiin qofka saxaraaga ku noole markuu baxayo waxyaabaha ugu badan ee uu ka fikiro waxaa ka mid a talo intaad masaaj ku socoto ama intaad shaqadaada tegayso gidaarkeebaad sii raacdaa in si aad uga yar hesho xoogaa hadha talow meeshaasi inteebay leedahay meel la harsan karo waa meesha saxraaga ah ee dee 50 ay taagan tahay xaraaradu harku waxa uu weyn qofku dareemo way nicam illaahi alkabiira
xagga jibaalka iyo buuraha aknaan buu idiin sameeyey. aknaan kinnigu waa meesha dugsoon. alkin waa meesha yara nagtaahee dugsoon, waa kuhuufta iyo godadka iyo qaarka hadiyo jeer buurta la galo. mararka qaarkood laga yaabo inuu daayeerku kale hadduu dadka uga horreeya inkastoon meel hoose gelin. halkaa waa la xadhaa, waa la nayfiya, dadku way isaga hoydaan. mararka qaarkood baa deegaanku geli karaa, mararka qaarkood baa dadka socdaalkii markay halkaa helaan dhaxanta iyo bahalka iyo roobkaba ay ka galaan dhulka qaarkooda godad leh. waxaa ilaahay idin yeelay saraabiila taqiikum alxar, dhar aad gashataanoo kulaylka idinka ilaaliya. kulaylka hadduu kaa ilaaliyo qabowgiina waa kaa ilaalinaya. min baab iliktifaa baa la idhaahdaayoo laba shay oo isbarbar ah haddii mid la sheego ka kalena waa ku hoos jilaan la qabso. haddii lagu yidhi dharku wuxuu kaa ilaaliyaa kulaylka, qabowgana waa ilaalinaya. marka labadu waa laba nicmo weeyaan. ilaahay hugaa iyo dharkaa uu ina siiyey ee uu inoo sahlay ee uu inagu ilhaamiyey sidaynu samaysanay. waxyaabahan oo dhan waa waxyaabaha ummadda nolosheeda asaasiyaadka u ah. ummadi had iyo jeer marka la odhan karo waa ummad jirto oo tirsan oo isku tashan karta waa markay dharkeeda iyo dhuunigeeda iyo gurigeeda markay samaysan karta wey. waa inaan wixii aynu cunayna aynu la soo bixi karnaa, wixii aynu xidhanaynayna samaysan karnaa, meeshii aynu gelaynayna waa inaynu samaysan karnaa. haddii intuba dabadda ku xidhan yihiin dee guriguna wuu nogoy, qaawanaanna waynu u bixi, bannaanna waynu istaagi. marka ummaddu waxyaabaha u horeeya ee ay ka fikirayso waa taa qur-aanka ilaahay uu nagu mana sheeganaya waa asaasiyaadka. ummadaha marka la qiimaynayaabaa intaa lagu qiimeeyaa. hal ya'kuluuna mima yunbituun aw mima yakhrujuun mima yastakhrijuun hal yalbasuuna mima yasnacuun. ma dadkani ma xidhaan wixii ay sameeyeen, ma cunaan wixii ay soo saareen, maya wax muwaarada bay cunaan oo dabadda laga keenay. haddaa kuwaasi bannaan bay taagayin baa la leeyahy. waaya wasaraabiila taqiikum ba'sakum, waxaan la ilaawi karayn saraabiishu waa wixii la xidhanayay. saraawiil maaha, surwaal maaha, waa saraabiil bilbaawi. waa libaaska iyo dharka, waa qalabkii laga xidhanayay ba'siga dagaalka. maalinta ragiselo iyada laftigeeda in gaashaan la helaa wax weyn weeye. lacagta u badan maalintaa waxay galaysaa maxaa lagu gaashaabanaya wixii fire proof ee dadka ka celinaya dabka soo dhacaya. dee berigu neer bay taagnayda. waa arrintu xariifka ku ah nebi daawud calayhi salaam ee ilaahay uu faray uli waqadir fi sardi, silsilada si wanaagsan ugu farsameeyo. ilaahayna uu xadiidkana u sahlay si uu qalabkaa u gashado. waa wixii laga gashanaya seefta iyo waranka iyo iminkana dawaabatan xabadda laga gashado oo la samaystay. marka kaa laftiisu min nicam illaah, ilahay nicmooyinkiisu ka mid yahay dadka uu ku ilhaamiyey. kadalika yutimu nicmatahu calaykum lacalakum tashkuruun baynu soo marayn. halkan waa maxay? lacalakum tuslimuun. waa inaad gacmaha taagtaan. istaslamna ila allah waqaala inanii min almuslimiin walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. ilaahay ou isdhiibnay intan oo dhan kale haddaad noo keento hungurigii adigu aad noo hayso, oo dharkii oo dhuunigii oo gurigii waxaanu haynaaba aan jirno waxoo dhanba adigu aad noogu wada deeqday ya allah istaslamna ilayk. ilaah waanu isu kaa dhiibna. waa sida laga doonaya. haddii ay diidaan fain tawalla fainamaa calayka albalaaq yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha wa akaruhum alkaafiruun. nicmadii ilaahay bay garteen oonay haddana diidayaan. nicmadii ilaahay bay garteen markaasay haddana diidayaan. waa arrin cajiiba. ويوما مال حسن نبي محمد ونبعث ونصو صار إن من كل أمة شهيدا ومد والبمد مرخاتيا ثم لا يؤذن الله القرآن ما يلي الذين كفروا كوي قالوا بي خلف ولا هم يستعتبون لنا على ماي أما رالقين اللي قدوني ماي وإذا رأى الذين كوي كل أركان ظلموا ظلم السماء العذاب كل عذاب كأركان النحام فلا يخفف عنهم عذاب كلا مفضودين ولا هم ينظرون لون كادين مايو هريدا لقى قلينيا وإذا رأى الذين أشركوا كوي الشرك السماء كل أركان شركائهم إلهي شودي عابدين قالوا حيدا ربنا إله يبيو هؤلاء شركاؤنا كوا سوا كوا نكل عابدين الذين كوي كنا نهي ندعو من دونك كوا عابد أديك أنت كاسو كيس كوا نعابدين دي إلهي وكوا
gaaladii baa sidaa leh fa alqow ilayhim xaggooda waxay u soo qadimeen kuwii la caabudaya alqowla hadal jawaab bay usoo tuureen maxay leeyihiin kuwii la caabudaya innakum lakaadibuun beenaalayaalbaati haddaadna caabudeen baatil bay ahayd nama baydaan caabudeen wa alqow ila allah ilaahay xaggiisa waxay u qadimeen labada qoloba yowma idin maalintaa qiyaamaha maalma iskuma jiraane assalama istislaam way isdhiibeen maalintaa waa isdhiibeen way islaameen wadalla canhum maa kaanuu yaftaruuna waxaa ka lumay waxay abuuranayeen baatilka ahaa aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illah kuwa gaaloobay jidka xaqaana dadka ka hor joogsaday zidnaahum cadaaban cadaab baanu u kordhinay fowqa alcadaab cadaab kala sii saaran bimaa kaanuu yufsiduun dhulbi'isnimadii ay dad iyo dalba kharibeen daraaddeed halkaasaa ilahay ka daba socdaa waxaynu arkaynaa halkan aayadan intaa faqradaa wada socota wa yowma nabcatu baa ilaahay uu ku bilaabay maalinkaanu dadka soo saarayno aayadda dambe 9 wa yowma nabcatu fii kulli ummatin shahiida halkanna wa yowma nabcatu min kulli ummatin shahiida waa bacf waa soo bixid maashii nolol ahayd halkan la yskagama hadhay halkan intoo dadkii la cunay ee la cabay ee la dhaqday ee la camal falay midba dhanku doono uu riday shar iyo khayr halkaa la yskagama hadhay noloshuna ma aha mid halkaa ku dhammaanaysa ka sidaa u fahamsanayn waa ka anbaday weeye ee odhanaya qowl ficilkiisu uu leeyahay ilaahay halkan xikmad darra dadka u keentay ficilkiisu waa saas weeye laakiin nolosha halkani waxaad u aamintaa inay tahay marxalad safarahoo la marayo loo gudbayo uu nolol kale waa la aag bedelanayaa wama almawtu ilaa rixlatun gayra annaha min addaari alfaani ila addaari albaaqi geeridu waxa weeyaan waa rixla waa safar dhimasho aan soo noqon lahayn maaha waa safar intaad halkan ka safartuunbaad haddana tegaysaa un daarulbaaqi ayaad u safraysaa daarulfaani meeshii dhammaanaysayna waad ka tegaysaa marka saa u xisaabta qur-aankuna arrintaa aad buu inoogu disaa arkaantii iimaankana waa ka mid arrintaas waxay akidaysaa insaanka taa aaminsan aakhiro aaminsan inuu xaggeeda u socdo oo ilaahay ishortaagi doono oo la xisaabin doono oo la abaal marin doono turaaluu leeyahy qofkaasi turaale dadku u turayaa diintu u turayaa dalku u turayaa wuu miyir qabaa kii kale laakiin liiska aanay aakhiri ugu jirin dee muxuu leeyahay aakhiro danteeda maxaan dibiray qaar yidhi soomaad maqal halkaasuu taagaya maxaa xaaraan la cunaa maxaa la waxeeyaa maxaa la dilaa dhankuu doonaabuu wadayaa marka adilada bacfigu aad bay u badan yihiin qur-aanka kariimka markaynu eegno ilaa 7 siyood ayuu daliil inoogu dhigaa kolkaad eegto adilada bacfiga mararka qaarkood wuxuu qur-aanku tilmaamayaa shaygu haddii aanu ahayn markii hore wax jiray oo laga dhigo wax jira waxaa jira soo celintiisu inay ka sahlan tahay soo bilaabidiisa daliilka kaasuu mar inagu siiyaa markuu inaga qancinayo soo celinta soo noqoshada aakhiro macnaha shayga imika intoo la sameeyey meesha ka baxay soo celintiisa ka sahlan buu qur-aanku leeyahay ku imika la bilaabayo marka haddaa ogolaateen inuu ilaahay khalqigan marka horeba bilaabay bilaa naqshad iyadoonu khalqigu jirin dee soo celintaaba ka sahlan kolkaasaa ilaahay waxa uu leeyahay huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciidu wahuwa ahwanu calayh walahu lmathalu laclaa ilaahay khalqiguu bilaabay kalka hore waanu soo celin doonaa intii uu markaa meesha ka baxay khalqigu kadib soo celintaasaana u sahlan hadda tusaalaha wanaagsana sarena ilaahay baa le ogaada halkaa waxaad ka fahamtay bani aadamka laftiisii shaygu marka uu bilaabayo iyo marka dambuu ku celinayo ku celintaa u sahlan dee saa uga qiyaas qaata oo idinka laftiinni haddii shaygani uu tijaabo maro oo marka hore intoo la sameeyo dib u samayntiisaa ka sahlan bilowgiisa ilaahay boqorkaa labadaba isugu mid ahaayeen bilowga iyo celinta maxaad ku diiday alistidlaal binawmi linsaan waistiiqaadihim mararka qaarkoodna qur-aanku kolka uu ina qancinayo waxa uu tusaale inaga siiyaa soo celinta aakhiro inaynu ka daliishan karno seexashadeenna iyo soo toosideenna inagama fogaba
وارين كلا ينقو حيران إن أي نسيحنا أو أي نصوت وصنا وحيلمتها إن أدمته ولا وصوله ليه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وإله إذن أفصل يا هبينك وحوقها يوحى مارنتي الشقيستان حتى وإذا صار صار يا هبنا وإذا صار توسينا يا مولى إله يحول ثم يبعثكم فيه وإذا صار آخرة توسينا يا بعثك ولا أرى لا استعمال الصوم الله أنت تنبه سيحشر علينا وحنا لمت بمشدي سو توسيدنا وحنا لمت صار صار ثم يبعثكم وإذا صار آخرة توسينا يا يعني جريء هي مرك قارك القرآن كوحدر كيساك القرآن كان يقل عميه واستدلال بالأرض البيت أوكي بنتي يبري آدم كل لقى أبو ري أي يسبر برلقيا أتادو كاركتي سوى بنتي قرابه أمص بورك دولية لأن مرك هو كده أي عاد مرتي سوى عقارن وعنده أي كدوك سنة يا رب بالعسن تهو صلى الله عليه كل كورن الجيربها قفكي روحها متى وفيا بختي وهالكاتشي فوق كيريس حتى لو صلى الله عليه وسلم كاسوكر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ركاسائل هاي وحولي قفي وهدار وحيي كريس وحضر كيسادوركي أو بابعي أو بورك دوريو بيام كشبني وقلقشو مركاسو عبي بيه nabaadkiibuu ku soo jawaabay markaasaa markiiba ilaahay halkaa soo dhigay waxa uu ilaahay dhulka nooleeyay hadda kuwa dhintay inuu soo nooleeyo kaasi la mid yahay la qabso cid waliba way akhri karaysa mid joogay mid magaalo joogay quraanku markuu ina qalcinaya arinta الاستدلال بالقدرة الكافية التي بها خلق آدم من تراب أود إلهي لما يسكتران آدم عيد ككانتي إن أنا يكو أتكين سوعلين تخلقك رسوله قرعنا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة هذا كشك سنتي ولا إلينا أن تذكر سوعلين يا آخرة حقا لديك إذن ككانا تعيد ما لديك ككانا يا أبيه لديك كان عن رفضة لديك ككانا عنصر كان صاحب كتنين أصل كيدينها عيدة سال إذن ككانا ومركة طبعا إذن كسو صاري الاستدلال بالقدرة على خلق العوالم على إمكان إعادة حياة الناس مركة قار كولي لهاي كل قوي لقى قرعنا يا رنت عالم كان عجيب كاهي وابوري يا وسورة قليل عندها أي نكوها إنه أيها إنه وشبها أما إنه بربر بقاسو علين تيننا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون عركي يلوك أبور كودة أي أبورك إنسان ككوين باي لهوي هذا كوريه هو سيقو كإله أبوريك عركا باحد عليه يلوك باحد عليه بلر كيسي يسمك كيسي قرديسو انتها إلا يكتها هذا إله أود على كا أبورك إنسانك هذا هو سهلية أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخر الآيات أأنتم أشد خلقا أم السماء حق أبورك ما يدينك أرد مثل سمرة لو تاوين بسبيه يتينا يرمحاو دي ليسان إنسانك يرى ضعيف كمسكينك وحكى الله إلى هذا التلباوة يا سبحانه إنسانك mar hadduu yahay mid sidan faraara lahoo kala camal duwan oo kala dadaal iyo dheeraad kala lahoo kala nooc inaanay noqonaynin farasiman inaanay noqonayn laakiin kullaytada abaal marinay ay jirayso waa ka ilaahay layna saa'ikum la shata tama man a'ba wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra ila akhir al ayat amalkiiba kala tagsano mar la isu waabinayo tan way kala dheeraysay mar la isu waabinayo ووقت تشري دورة بإلهاء المركز يسكت عليه عمل كي عوالك وحيابها تسنى يوحى كبدا الاحتفاظ بالأعمال للنظر فيها ريكورد كان لا ينقص ما ينيو قرآن كان لا ينقص ما ينيو عمل كان لا ينقص قريو محاو حلا قرآ وين تقلوا النقطة دي وحاو حلا قرآ أسل كده بقى إن تب لا يضل النقطة sidaa daraaddeed ba intaasoo khalqiga oo malaa'igaba ilaahay uu dirsadayoo aan shaqo kaleba lahayn
inaga weli laga qoraya waxaa la qoray wuxuu cadaynayaa oo uu daliil u yahay in la isku soo noqonayo sida laguma kala tegina waa la isku soo noqonaya waxaa la qoray waa lagu horkeeni doonaa iqra kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba ilaa toddobada arrimoodba waa toddoba arrimood oo muujinaya daliilka bacfiga wa yowma nabcahu oo ilaahay uu ku celcelinaya subxaana wa tacaala marka waxaa wanaagsan qofku sunnada qur-aanka iyo usuushiisa iyo habka u socdo iyo cilmigiisa marka aad aragtaabaa wax weyn uu kuu baxaya qancintu ay dhammaystirmaysa kolkaasaa ilaahay waxau ihi bal waxaad xustaa nebi maxamed oo dadku iyagoo halkan joogoo jaanisaysa waxaad uga warantaa ha diyaargaroobeene maalinka ilaahay ummad walba shahiid buu ka soo saarayaa waa maxay shahiidkaas waa rasuulkii weeye ilaa meeshaa maalinta la joogo waa mid markhaatiya iyo mid lagu markhaatiyaha siduu ilaahay ba yihi wa shaahidin wa mashhuud shaahidkuna waa markhaati mashhuudkuna waa kii markhaatiga lagu ahaa nabi maxamed oo halkuu ka ilmeeyey calayhi salaatu wasalaam markhaati kaca iyo maxkamada iyo arooska arrimaha la isku soo aloosay miisaanka ilaahay dhigo ilaahay weynaa taagan yahay arrintaasuu ka ilmeeyey asxaabigiisiisa cabdillahi bn mascuud awr warba suurat nisa igu dul akhri cabdillaahi aqra'u calayka waqad unzila calayk oo mayadoo lagugu soo dejiyay baan kugu dul akhriyaa buur haadu waxaan jecelahay inaan ka dhagaysto cidaan aniga ahayn waayo qofku had iyo jeer markuu shayga dhagaysanaya inuu ku howlanayn akhrinta wuu uga dhadhan badan yahay xagga dhagaysiga suuratu nisaa baan ku akhriyay aayaadka afartameeye markaan marayo ee toos nabiga loola hadlayo muuqaalkii qiyaamaha la hor keenay ayuu nabigu limeeyey calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay xasbuk bal intaasi kugu filan halkaa ku joogo aayaddu maxay leedahay fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaai shahiida arrinku sideebuu noqonaya arrinku adag ah maalinka aanu adiga kusoo joojinno maxkamadda adoo ku markhaatiya kuwan adiga oo ku markhaatiya ummad walbana rasuulkeedu markhaati ku yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii wanaagsanaana markhaati buu noqonayaa kuwii liitayna markhaati buu ku noqonaya maalintaa nabigu ciduu ku markhaati furaa kabteed ma yaalla meel ay u dhaqaaqaysa ma leh halkaasuu dhulku kula go-aya marka ilaahay waxau ihi laa yudanu liladiina kafaruu walaa hum yustactabuun kuwii gaalada ahaa idan ma leh fasax uma haystaan hadal ikhtiyaar dhaqaaq midna waa la haystayaal aan la maaraynaynin ilaahay baa haysta subxaana wa tacaala walaa hum yustactabuuna citaabku markiisa hore wuxuu canaanta maa musiiun man caataba baa layidhi qofka ku canaantay waa qof kule ha ka badiyo wakhtiga la iscanaantaa waa goorma waxa weeye wakhtiga la doonayo inaad camal fasho yustactab waxaa la isu canaananayaa si uu qofku camal wanaagsan u qabto ka reeyo meesha lagu camal falaa waa halkan meesha la isku raaligeliyaa waa halkan laakiin hunaaka lilxisaab walilciqaab halkaas waa xisaab iyo ciqaabun iyadu ma jirto canaan iyo waxba walaa hum yustactabuun walaa hum yustardawn raaligelin bixiya oo ilaahay raaligeliya oo ka reeya wanaagsanaada ma jirto waxay abaal ku qabaan intoo canaan lagaga qaado in la daayo canaantana may ogolayn hadal lamay ogolaynbe in la canaantay jeclaadeen oo ay raaligelin bixiyaan oo laga hado laakiin maya canaani ma jirto loobana fasaxayo lagamana raali noqon waxay arkayaan kuwii daalimiintaha cadaabkiiyo markaasaa cadaabkaasi kolkaa ay arkaan ayaa warwarkiiyo walaacuu ku badanaya siduu qur-aanku meelaha qaarkood ka waramayo walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wa samicnaa haddaad arki lahayd gaaladii oo madaxa foororiyey ilaahay agtiisa oo le ilaahayow maanta waxbaanu arkaynaa waxbaanu maqlaynaa indhuhuna way noo baxsanyihin dhaguhuna way noo furan yihiine ilaahaw naceli aanu camal wanaagsan soo samayne hadday maalintaa kuwa aad arki lahayd waad yaabi lahayd yaab baad u dhimanay marka kolka ay arkaan cadaabkii falaa yukhafafu canhum walaa hum yundaruun dee loona kaadin maayo lagana fududayn maayo ilaahay sida uu doonaya waa abaalmarinaya meeshii markaa waxaa la isugu keenay caabidkii iyo macbuudkii ilaahay iyo khalqigii caabudayay way yimaadeen shurakadii iyo mushrikiintoodii ciddii caabudaysa cidaan ilaahay ahayn iyo waxay caabudayeenba waa la keenay iyaguna halkanay taagayn war meeshu qaad weynah meeshu cajaa'ibsanah halkaasaa la ysugu soo wada saaro la ysu soo fayliyey kii shaydaan caabudaya kii dhagax caabudaya iyo kii rabitaan caabudaya iyo kii insi caabudayaba waa hortaagan yahay
markay arkeen in la haysto kuwii wax caabudaya ayaa waxay yidhaahdeen rabbanaa haaulaai shurakaa'una aladiina kunaa nadcu min duunik shurakadayadii weeye waa ilaahyaashayadii aanu caabudayno min duunika adiga sokadaa nacasyaal waxay isleeyihiin waxbaa idinka dabcaya markaasa waxay seen cunsurta xaggooda u riixo oo waxay yidhaha ilaahw kuwaanu caabudayno waa kuwan balaayada noogu wacna iyagiina way iska riixeen balaayadii waxay yidhahaan fa alqaw ilayhim alqawla inakum lakaadibuun beenaalayaal ayaati oo haddii ay caabudayaan miyay been sheegeen haayo waxay ku been sheegeen waxa ay qowlka ay lahayn iyo ficilkay samaynayeen baa ahaa mid baatila ka runtii waxa in ilaahay la siiyo cibaadadan marka beenaalayaal waxay ku ahaayeen xaqii bay siiyeen cid aan lahayn waan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala beenaalayaal been waalqaw ila allahi yowmaydi salamku waa istislaam toos bay ilaahay ugu qadimeen inay isdhiibeen ilaahay ou isdhiibni dee waa kuwaale samicnaa wa absarnaa wa samicnaa arag iyo maqalba waa leen wacanat ilwujuuhu lilxayi alqayuum cid waliba maalintaa way isdhiibtay aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illahi zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi bima kaanuu yufsiduun qofka gaalka ah jidka ilaahay hor fadhiistay dadka ee caqabada ku noqday jidka ilaahay in la maro kaa cadaabkiisiibaa siiyey luminta uu dadka lumiyey daraaddeedna cadaabkii baan u labanlaabay waxaana laga abaalmarinaya ifsaadku sameeyey macnaha qofka xumaanta sameeya xumaantiisii waa laga abaalmarinaya intuu lumiyeyna halkaana dembi kaluu ku leeyahay cadaab kaloo ka mutaystay waa cadaaban dicfan waa loo labanlaabay waxaad halkaa ka arkaysaa kufri haddii la arko waa ifsaad asalkeedaba islaax iyo iimaan la-aan isma galaan waa arrin xaqiiqaa weeye in uu qofku yidhaahdo hebel waana kaafir waa gaal waxbaanu islaaxinaya ma suuroobayso awal alifsaad ifsaad halkii ugu weyneyd aslu lifsaad ayuu ku tilmaamayo imaan la-aana faaqidu shay laa yuctiih qofka shay ka faramarani ma bixiyo islaax isagiibaaba ka faramaranba marka waa kaa rabbi tilmaamayo bimaa kaanuu yufsiduuna bimaa kaanuu yakfuruuna ma odhan laakiin bimaa kaanuu yufsiduun fasaadkay sameeyeen daraadii hada yadullu calaa ana alkufra asaasu lifsaad arrintana waxay tusinaysaa sababtu ilaahay ku sameeyey waxay tusinaysaa kufrigu iyo iimaan la-aantu inay tahay asaasu lifsaad wa yowma maalin mar kale xus nabi maxamedow nabcafu fii kulli ummatin shahiidan calayhim ummad walba waxaanu ka soo saaraynaa mid ku markhaatiya oo min anfusihim nafahooda xaggeeda ka ahaaday naftooda ka soo jeeda waji'naa bika adigana waxaanu ku keennay shahiidan calaa hawlaai adigoo kuwan markhaati ku ah wanazalnaa calayka alkitaab qur-aankaanu kugu soo dejinnay tibyaanan likulli shayin wax walba isagoo cadaynaya wahudan hanuun isagoo ah qur-aanku waraxmatan naxariis isagoo ah wabushraa isagoo u bushaaraynayo khayr u sheegaya lilmuslimiina dadka ilaahay u hogaansan ina allaha ya'muru bilcadli ilaahay cadaaladu dad yahow idin faraya walixsaani samafalku idin faraya waitaa'i dilqurbaa dhowaalaha iyo xigtada in wax la siiyaabuu idin faraya wayanhaa wuxuu idiin diidayaa cani ilfaxshaa'i foolxumada iyo walmunkari dembiga walbaqyi iyo kibirka iyo gardarada intaana wuu idinka nahiyaya yaciidukum ilaahay wuu idin waaninayaa lacallakum tadakaruun waxaa la sugayaa inaad waantoodaan oo wax qaadataan markiiba waxaad arkaysaa aayaadku ma kala fogada adduunyadii aakhiradii baa ilahay isku lifaaqaya markiiba aakhiraynu kahaynay markiiba ifkan baa arrimihiisa ilaahay uu ka hadlayaa iyo acmaasha inoo taalla saasay isu daba socdaanoo tii waxa weeye dadaalku qofku sameeyey iyo abaalmarintii maalinka qiyaamaha waxaanu soo saaraynaa ummad walba shahiidan calayhim min anfusihim mid naftooda ah oo ku markhaatiya waa rasuulkii mar kale ilaahay uu kusoo celiyey markaana si gaara loo sheegaya imikana si gaara waa laba nadaro ama laba eegmo oo kala duwan weeye markaana dhinacbaa laga eegaya rasuulka iyo markhaatigiisa imikana dhinac kale wey waa min anfusihim kama fogada iyaguu ka soo baxay iyaguu ka dhashay iyaguu la jinsiyaha rasuulkani iyaguu xogogaal u yahay wiisa soo taagaya rasuulkaas xataa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo uu mootan yahay inuu ifka joogno haddana qof waloo ilaa qiyaamaha imanayba ku markhaati furaya markhaati furkii oomabuu joogine waa sidee waxa ugu markhaati furayaa calaamooyin baa ilaahay uga muujinaya
قفك وناكسن صالحة أهد جنة له بدبادة له علاموين بوليه لغو يقامو وكم وقنا يكوي ولا جوغا يكوى كبن بايوا قفك مفسد كأهل ليتان علاموين بوليه مد ولبا مدنا الله العصبة كبحيا مدنا الله العقارة مين يسكو خلطمايا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام markii uu ka waramay aakhira uga waramay ummadiisa iyo inuu nabigu ummadiisa garanayo oo soocanayo ayada maxaad ku garanaysaa ummadda nabi maxamed marka su'aashii intaanu ka jawaabin xigmadaha uu dadka wuxuu ga dhaadhicin jiray waxa kamid ahaa intaanu su'aashooda uga jawaabin su'aal buu weydiinaya markay jawaabteeda bixiyaan buu jawaab uga dhigayaa waa asaaliibta tarbiyada rasuulka sallallahu alayhi wasallam hababku wuxuu tarbiyin jiray wuxuu waxaad ka warantaa haddii nin uu leeyahay fardo wada madow mid kalena uu leeyahay fardo barbar leh ama dharan jeeyaha cad qoorta cad wal ka warrama oo fardihiisa barbartii cadcadaan kale kuwii buhmiga ahaa ee madooba ay ka dhax galaan meel ka soo soocay meel ka soo soocay لأنه هو كسوع عيابي هذا هذا كجوابه جوابتي أنا ويجا حل قاضي وكسوع عيابي مركب فرتها كسوعنا يسوع توحي بر لها قابة وعاد وجه عظم بس أنا بدو درينا يسوع سيد بيا بدو صوم مرايسة حولها الله كلام مرة ولا لا سيد بيا بدو مرة كلايس مركب تنو النبي كشجع أنا عليه الصلاة والسلام وأتيه حديث كشجع إن أمتي يرعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ummadayda maalinta qiyaamaha waa loo yeerayaa iyagoo wajigooduna u wada iftiimayo xubnahoodii ay ka weysaysan jireenna ay wada dhalaalayaan warwarayaan iftiimayaan in alla intuu qofku weyse mariyay ama in la mariyaa sunna ha ahaata ama faral ha ahaatee ayaa tiriiganaysa halkaa dadka kaaga soo socda ee qaar intaasi siraadaysa iyo gacmuhu siraadayaan iyo mid madow oo isaguna isu baxay adiga beeska ka darmaya ruuxi tiriig loo dhinaca u beeray midigta wixii balaaka madowna algiina ku ara bidixda ariga waa iska dhibiyay laakiin waxa balaaya dhacaysa kuwii tiriig lahaa laftigooda marka la qabsado kuwii tiriigtay laftigooda ayaa yana qaar la qabsanaya markaasuu nabigu oranaya calayhi salaatu wasalaam waa ummadaydi ka daayay malaa'igtii kala soocday ee kuwan xaggan u duuday kuwan xaggan ay leeyahay iyagu calaamadii ay leeyihiin بلوكادي دركها كعب بين السوداء كل كاسي لا يهين إنك لا تدري قد غيروا وبدلوا بعدك على معنى الحديث حبنا أوجيني دينتي بيتبدأ بدله ولا قد بها إسكت تريكتنا ولا قول فاقية ولا وهلية تريك إنه إسكت يني يفتين كم لكن والله هيستيال أو وح نار جليي كلام إيمان هلا هذين أصنامتي هلا هذين عبادتي هلا هذين لكن هذا هو النارين والله هيستيال إلهي صف فرأي شفاعي مو يا والله هيستيال منه هو نصح قنبله ده لا فوق هذا حين إسلام أفترسي ما كلا ينقل حين الدين بين نقل حيسي علامة دين وطه هدي دين تي كبين شيكتين أما الدين ضعيفة أو وطان ده ما شهدون إنسان مش اللي دونه هلا مرة سبحان الله أرنكوا أرجع وكحالة يوم لا إله يكسر ما يسكون شرانا ما أنت سالك ما أنت حالك سرور ما أنت تذكر شيء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يقول وانك كينينا وجئنا بك أنا نكسوت وجينا النبي محمد ومحكمة إلهي شهيدا على هؤلاء أبا كون مرخاتكوا هؤلاء اسمه شارو كمو هرين يتلمانتم كما هرين أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم كوا أنت لغو مرخاتي وابا يرتهيبا لكن waxay soconaysaa ilaa inta ummaddu ay wax ka joogaan ifka talow dadkan maalinta lagu marxaati noqday ma cudurdaar bay lahaayeen ma waxbaan loo sheegin maya waxbaba looma reebinba dadka waxbaba looma reebin oo ilaahay wuxuu yiri wanazalna calayka alkitaaba tibyana likulli shayin wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimiin kitaab afartaa tilmaamood lana way hayeen waana ka soo dulboodeen way istaahilaan in lagu marxaati noqdo markaa nabiga kitaabku wayna marxaati ku noqdaan إن القرآن حجة لك وعلي marka kitaabkan araanku ku soo dajiyay waa tibyaanan likulli shay wax walba uu cadeynaya quraanka aysaas ku sifeey shay kastaba quraanku ama wuxuu uga waramay doodoo ama tafsiil ama uu saafay waa kala iftiimiyay ama si doodooba uga waramay
iyadoo laguna darayo oo kitaabka nabiga lagu soo dejiyey uu raacayo la socdo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam isaguna dee waa waxi ilaahay uu siiyey oo kitaabka ku lifaaqan oo fasiraya oo kabaya lan ilaahay baa yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim si aad dadka ugu cadayso wixii uu ku cadaynayna waxyiguu ka mid yahi wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa wuxuu ku hadlayaaba waa waxyaanu waxyooday baa ilaahay wy marka qur-aanku shay kastaba waxbuu ka sheegayaa imaa ijmaalan wa imaa tafsiilan ama si guud ama si gaar laakiin dadkuunbaa ku kala duwan fahamka qur-aanka oo qofna wuu daliishan karaya qur-aanka oo cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo firaasadiisa fahamkiisa wuxuu gaari karaa in shaygaa uu u helo daliil caam ah qofna taasaa ka madoobaanayso waxbaan uga baxayn qur-aanka laguma sheegin buu iska leeyay qur-aanka laguma sheegin waa lagu sheegay waanay kuu dhaadhicin meesha laga daliishanayaa baanaad fahmin baadida had iyo jeer dee halka ay aana u tahay marka aad ogaataabaad si dhib yar u heshaa iyadoo halkaa baadidu jirta haddaad waqooyi u doonto waad ambanaysa laakiin markaad halkii unu doonto si dhib yar baad u helaysa cali ibnu abi aalib baa waxaa lagu yihi nebigu wax gaara miyuu idiin dardaarmay aalu beytka haddaad tihiin oo uu kugu gooni yeelay maya buuhi maya ilaa faham ilaahay uu siiyey qofka oo qur-aanka laga siiyey mooyaane dee faham haddaan qur-aanka u yeesho wax badan aan ka sheegay qur-aanka oo aan fasiray taasiyay u qaadanin dardaara nebi oo igu gaar ahaa buu leeyahay cali markaa qur-aankaasa ilaahay uu siiyey hanuunna weeye naxariisna weeye bushaarana weeye lilmuslimiin buu intaaba u yahay oo qofka muslimkaa qur-aanku u hanuuniyaa qofka muslimkaa qur-aanku naxariis buu yahay isaga iyo wadankiisa isaga iyo gurigiisa isaga iyo noloshiisa isaga iyo ruuxdiisa intaba naxariis buu yahay qur-aanku meelaan qur-aan lahayn xaggee naxariis ka imanaysa bushaarana wuu yooda intee oo aayadoodba u bushaaraynaysa qof ilaahay isu dhiibay oo islaamay intee oo aayadoodba u bushaaraynaysa markaad halkaa ka timaado ummadan ilaahay takaaliiftiiyo xilka iyo waajibka uu saaray usoo noqo waxay isugu jiraan diinta gebigeeduba marka lasoo ururiyo waa ma'muuraatu wa manhiyaat wax la faray iyo wax loo diiday waaba labadaaba waxa laynagu adoonsaday imaa ma'muur wa imaa manhiyun can ama waxa layidhi yeela sunniyo faral midku doonaya ha aado ama waxa layidhi iska daaya xaaraan iyo karaaha midku doonaya ha aado culamada shareecadu marka ay arrintaa iftiiminayaan waa kuwa idhaahda hunaaka axkaamun khamsa axkaamun khamsa wax la yidhahdaa jiro waa faralkii iyo sunnihii oo dhan ka soo wada jeeda xaaraantii iyo karaahadii oo dhan ka soo wada jeeda shaygii markaanu xaggaan ahayn labadaa dhexdooda taagan yahayna mubaaxaat baa la ydhaha mubaax waa shay qofku ikhtiyaar u leeyahay iska dayntiisa iyo samayntiisaba mubaax baa la ydhaha maa laa yucaaqabu calaa ficli walaa yuhaabu calaa tarki haddaad samaysiya haddii kale waa suuqaamid wey markaasaa ilaahay halkan uu ku sheegay wixii la faray dadka iyo wixii loo diiday waxa labaada aayadda aynu ka faa'idaysanaynaa wacdi maxaa la idhahdaa talow wacdi iyo waano waano amarna leeyahay nahyina leeyahay wacdigi iyo waanadu hadduu sheeko iyo haasaawo u noqdo labadaa uu waayo amarna uu waayan uruxa aan yeelno uruxaan iska dayn haddii taa laga waayo wacdiga waana lama idhaahdo wacdi ma noqdo ilaahay markuu saddex arrimood ina faray saddexna inaga nahiyey baa wuxuu ihi maxay yaciidukum wuu idin waarinayaa waana waa taa yaciidukum lacalakum tadakaruun oo usluubka daaciga loo tilmaamayo usuulu dacwa ayay ka mid tahay in hadalkiisa ay ku jirto wax uu farayo dadka oo lagu jahaynayo oo lagu hanuuninayo iyo wax looga digayo oo badbaadadu ay ku jirto markay ka tagaan in allaha yaamuru bilcadli ilaahay cadaaladu idin faray alcadaala cadaaladu waxa weeye qof cid walba xaqeeda la siiyo inaga hore soo tilmaanay asalka cadaaladuna waa iimaanka asalka cadaaladuna waa ilaahay xaqiisa la siiyo aslul cadaala waa halkaa weeye dee sii socow naftaada cadaaladiisii ehelkaaga sii ummadaada sii xayawaanka sii dhulka sii cid walba cadaalad bay kaaga baahantay icdaau lxaq limustaxiqi xaqii oo la siiyo kii mutaysta ixsaan ayaa ilaahay idin faraya ixsaankuna waa waxa weeye samafalo waa shay cadaalada kaba dheeraada labadaba ilaahay wuu faray maalan haddii adiga imika wax aad cid ku leedahay inaad ciddaa waxaagii ka doontaa waa cadaaladii aad baadi doonayso
marka inaad cadaalad wax ku qaadato waa mid lagu amray oo aana dulmi waxba ku qaadan waxa labaaba laakiin lagu amray inaad ixsaan samayso ixsaanku waxa weeye wax aad cadaalad ahaan u yeelanayso barka tanaasusho ama dhammaantiiba ka wada tanaasusho qofka mesela adduun baad ku leedahay intaa leeg inaad adduunkaa weydiisato ood ka qaadato ama lagugu xukumo xaq baad u leedahay waa bilcadli inaad barka daysi inaad kaba dhaaftaana waa ixsaan labadabana ilaahay wuu faray labadaba waa la faray weliba da ixsaankaasi cajo badanoo isagu quluubtu isu jiidaa oo dadka xadaafiirtii iyo xurguftii dhex taallay buu ka saaraa oo quluubtooda isu soo dhowaan karta bilcadli walixsaan wa iitaa'i dilqurba iyo qaraabada ixsaankuna de in allaha kataba alixsaana calaa kulli shayin buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wax walba in samafalka lagu daro xaqa ilaahay in samafalka lagu daro xaqa naftaada ka ummadda ka xayawaanka xataa waidaa qataltum fa axsinuu lqitla buu le waidaa dabaxtum fa axsinuu dibxa alixsaan an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak marka ixsaankii meel walba wuu galay xataa cadowgii marka aad la dagaalamaysaabay tahay inaad ixsaanka ka tegin cid marka wax kaa gaalayaan inaad ixsaanka ka tegin neefka gowriciisii baa layidhi ixsaanka ha ka tegin marka ixsaankii kataba alixsaana calaa kulli shayin gobonnimada iyo sharafta qofka muslimka ah ee tallaabadu qaadayaba uu kula dhaqmayo ayuu ixsaankii noqday iitaa'i dilqurba qaraabada la siiyo wax kuwa dhawaalaha ah oo kuwii dheeraano macnaheedu waxa weye kuwan haddaad ku filaato kuwa kalena waxbaad gaarsi kuwa haddii aad kaba soo dulboodo kuwii kalena waaba laga yaabaa inaanad u tawaabinba dadka qaarkoodba yuhuudda waxay dhahaan bay dhahaan lacagta tayaryar lama bixiye tawaaweyn baa la bixiyaa maxaad u fahamtay markaa tayaryar lama bixiyo bay dhahaan leanna waa la biirinaya tawaaweyn baa la bixiyaa waxay la mid tahay waxba lama bixiyo kol haddaad tii yaryarayd bixin weyday tawaaweynna dee kuga dhiiranba maysidba saasay ujeedaan saas weeye waa waajib iyo sunna labadaba waa noqdaan qaraabadan wax la siiya waa dow saasuu qur-aanku isugu dhiirinaya dadka oo asalkeedaba laba qaybood weeye ummaddu ciddii wax bixinaysa ilaahay waxa uu ku abaabulay waxbixinta dadka uu ku abaabulay mar labaad haddana wuxuu ku abaabulay inaanay waxba weydiisanin ee qof waliba naftiisa uu ku filaado labada arrimood kolka la isu geeyo waxa yaraanaya baahida mujtamaca iyo wareerkoodaba u yaraanaya markuu kii su-aali lahaa su-aashii ka dhowrsado kii kalena iyadoo waxba la su-aalin garasho uu ku daro oonu garaacashaba yeelanina garasho uu isticmaalo kana uu su-aashii iska daaya mujtamac miyii qabaa soo baxaya laakiin mujtamac kanina qaylayuu daasa tumayo kanina afka xaggaa u maroorinaya waa meel isku dhalaashay uun waxba ka soo bixi maayo wayanhaa cani alfaxshaai walmunkar faxshaaga iyo munkarku dee waa laba dembi laakiin culamadu tafsiir waxay leeyihin inta badan ereygan faxshaa waxaa loo isticmaalaa dhaawaca dhegta la gaadhsiiyo iyo sharafta dhaawaca sharafta la gaadhsiiyo ummadda iyo qofka ayaa faxshaa loo isticmaalaa waa sinadii iyo wixii la odhan jiray qadafkii qofka sharaftiisa la dhaawaco iyo ceebayntii iyo cambaarayntii waa dhibaatada soo gaadha had iyo jeer qofka iyo ummadaba sharaftooda dhaawacaasaa faxshaa sideedoo kalea dee in badan lagu tilmaamo alfaxshaa inay tahay waaya munkarkuna waa dembigii caam ahaan baqiguna si gaar ah ilaahay si gaaru isagana u diiday baqigu waa kibirka baqigu waa gardarada qofka oo dadka ku kibra kuna gardarooda oo xadgudub sameeya kaana ilaahay waa diiday arrimahan waa arrimo khatar oo faxshaaga iyo nusuusta waxay tilmaamaysaa faxshaaga oo foolxumada dhegta iyo sharafta dadka la soo gaadhsiinaya iyo baqiga gardarada iyo qaraabogoysnimada saddexda arrimood nabigu wuxuu tilmaamay hadduu qofku ka dhammaan waayo saddexdaa la yimaado ku dhaqmo intaanu aakhiraba gaarin ifku ilaahay ku abaalmariya qatiicatu raxim hadduu sameeyo ifka lagu abaalmarin hadduu baqiyo sameeyo nafsibaa ku dhaco dadka intii uu dadka gaadhsiiyey ilaagunbaa isna la dubayn doonaa faxshaa iyo foolxumo hadduu sameeyo isaga iyo ehelkiisaa lagu samayn waa cudurada khatarta jawaabtooda ifkaba soo degdegto intaan aakhiro la gaadhinba yacidukum lacalakum tadakaruun ilahay baa saa yidhi subxaana wa tacala inaad waantoodaan baa la rajaynayaae laakiin ilaahay uu idin waaniye waxyaabaha dadka lagu waaniye ugu cajabta badan ee ugu qiimaha badan suluukiyaadka iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan gaalka lagula dhaqmayo islaamka lagula dhaqmayo ilaahay lagula dhaqmayo ayaa halkan ilaahay uu ku xusee ummad ka dhiga oo ah inay ballan yeeshaan
iyo shakhsiyad ku talagal leh meel loogu soo hagaaga leh marka aayaadkan soo socdoo dhami waxa ay ka waramayaan ballantii iyo cahdiga oofintiisa ay lahaa aayadkan kaga waramayaan waa arrin ummadda islaamka lagu ogayay caanku yihin waawfuu bicahdi illaahi ballanta ilaahay dhammaystira idaa caahadtu marka ilaahay la ballantaana kaga bixina walaa tanqudu laymaan dhaaraha ha jabinina bacda tawkiidiha intii adkayseena walla ilaahay ku adkayseen waqad jacaltum ullaha idinka oo ilaahay ka dhigay calaykum kafiilan mid dushiina kafiila xafiidan calaykum idinkoo ilaahay dushiina markhaati ka dhigay oo yidhi arrinkaa ilaahay baa inooga markhaatiya ha ka bixina ina allaha yaclamu maa tafcaluun dadyow ilaahay wuxuu ogaanayaa oon ka qarsoonayn hadda falkaa samaynaysaan walaa takuunuu dadyow ha noqonina kallatii gabadhii oo kale ha noqonina ruuxii dumarka ahayd oo kale ruuxaasi waa tee allatii gabadhaasoo naqadat ghaslaha xadhigeedii bay furfurtay min bacdi quwatin intii ay adkaysay kadib ankaafan furfurid tattakhiduuna ballantaha jabinina tattakhiduuna idinka oo ka dhiganaya aymaanakum dhaarihiina dakhalan baynakum waxaa dhexdiina isku khiyaamaysaan dakhalan baynakum waxaa isku silbaartaan oo isku khiyaamaysaan sababta talow ballanta looga baxayaa maxay noqon karta an takuuna inay tahay awgeed ummatun ummadi hiya iyadu arbaa mid ka badan min ummad kale ka badan ummaddaa hore la heshiiseen hadday yaraato tu kaloo fara badan aragteen taa faraha badan intoo raacdaan tii yaray ballantaa ku jabinina innamaa yabluukum allahu ilaahay baa idin jiranaya oo idin imtixaanaya bihi ballantaasu idinku imtixaanaya bal ku fashilba iyo ku ka soo baxaba waliyubayina lakum iyo si uu idinku caddeeyo yowma alqiyaama dharaarta qiyaamaha si uu idinku caddeeyo maa kuntum wixii ahaydeen fiihi takhtalifuuna kuwa isku khilaafa kaana kii xaq ku taagnaa buu tilmaami doonaa dadku wax badan bay isku khilaafsan yihiin qofkii xaq ku taagan wuu caddayn kii baatil ku taagan wuu caddayn mid walbana waa abaalmarin ilaahay subxaana watacaala saasuu addoomaha ula hadlaya ciduu la hadlayana waa innaga qofku markuu qur-aanku hadlayo waa in cidda ugu horraysa aad aaminsanaatay inuu ku jahaysan yahay adiga iyo bulshadaada noqdo wey adiga iyo ehelkaaga adiga iyo asxaabtaada markaasaad isasixi karaysa haddaad laakiin reer maka isu dhaafiso ama aad tidhaahdo qoladaasaa lala hadlayay ama firqad heblaayahay adigu waxaa laga yaabaa inaad bannaan istaagtaad bilaa qur-aan noqoto oo qur-aankula hadlayaba aad weydaba marka aayaadkani dabcan quraysh bay kusoo degeen sababtu ahayd waxay kusoo degeen qolihii carbeeda eryadaa ku noolaa oo dhaqankooda uu ahaa inay odhan jireen maslaxad joogta baanu leenahay mabda joogta ama lihin say gaaladuba imaka yidhaahdaan markaa waxay samayn jireen qolay la ballamayaan maalan qolay la ballamaya anstado sidaa ayala ballan baa la kala qoranaya waxay arkayaan kuwii ay cahdiga dhigteen qaar ka xoog iyo xoolabo badan markaasay leeyihin war kuwana xoog iyo xoolaba kuwii hore ka badan aan ka xadhig xidhanne kuwii waynu ka baxnay saacaddaa laga bilaabona laguma hadlayo ama iyagoo aan uga sheegin baaba dhanka kale la yskaga soo rogaya war sawtaynu balansanayn meero kaleanu ku tiirsanaan helay garab iyo gaashaan kaleanu helay nalaguma kii hadleeyo dabeetana kolba qola afka goosanaysa markaasaa talagalkii lumay ummadda islaamka ilaahay wuxuu leeyahy sidii berigii islaamka ka hor iyo jaahiliyadii u dhaqmi jirteen oo ahaa ummaduhu inay ballamaha iskaga baxaan iyo shakhsiyaadku ka daaya diin baa timi wanaagsan oo dhaqankii xumaa waa la bedelay ilaahay cahdigiisa oofiya cahdiga ilaahay waa kaa rasuulku inaga qaaday waa kan qur-aanku inaga qaaday waa kaa laynaga doonaya inaynu fulino cahdiga ummadda aynu la gallayna waa cahdi ilaahay maadaama ilaahay uuna faray cahdigaa inaynu fulino wuxuu ka dhigaya mid aynu la gallay oo kale ilaahay ballantana ha jabinina markaa ku adkayd bacda tawkiidiha kolkaa dhaar ku adkaysay kadib mar haddii ballan la galo ballan ilaahay wiye in laga baxa maaha waqad jacaltum allaha calaykum kafiilan kafiilku waa xafiid waqad jacaltum allaha kafiilan calaykum idinka oo yidhi wallaahu calaa maa naquulu shahiid waxaa ilaahay baa xafiid ka ah idinkoo yidhi oo ilaahay markhaati gashadaha iskaga bixina tusaale ilaahay uu soo qaaday aada u cajiibahoo dadku ay markaa wax badan ku fahmi karayaan gabadh baa markaa tusaale ilaahay ka dhigay xadhig soo haysa gelinka horena soo haysa gelinka dambena furfuraysa maxaa lagu tarin karaa wax ta noocaas oo kale ah miya inay waalantahay mise inay miirqab tahay ma inay nacas tahay mise inay farii tahay
kii ka jawaabayaaba su-aasheeda u soo warwareegi maaye wuxuu leeyahay ama way waalan tahay waa talaydhaa ninku qofku markuu waalaya foosta gulla baa la ydhahdaa dhaamiye foostadaa wuu ku shubayaa unoo markaa dabeetana uu garto inay baashani daloosho ayuu miirsaday intan kale laakiin uu waalan yahay wuu ku shubayaa wuu ku wadayaa marka dee waa inay waalantahay ama nacaste caqligii waa in wax ka siin talo miyay jirtaa gabadhani mise waa tusaale qur-aanku uu yeelayon ile mararka qaarkood baa shay aan jirin markaa tusaale qur-aanku amhaal baa la ydhahdo tusaalada qur-aanku bixiya labada arrimoodba culamada tafsiir way idhahdeen qaarkood waxay leeyihiin mid maka joogtaba oo yar sagagarada maskaxdeeda wax kasii ahaayeen markaa gelinka horena xadhiggaasay soo haysaa way tidcaysaa garbay samaynaysaa lagu hawshoodo marka qoraxdu sii wareegaysana dib bay u furfuraysaa ee u bilaabaysa halkii ay saaka ka soo bilowdunbaabu xadhiggii taagan yahayba maydhax bay ka dhigaysaa intii uu xadhig ahaa kadib waaya taasoo kale ha noqonina ama haddii ay jiri lahayd ta noocan oo kale ah walaa takunuu kaalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwa intii ay adkayso kadib bay ghasligu waa xadhiggii ayaa xadhiggii furfurtay ankaatan furfurin innagu tusaale waxaynu usoo qaadanaa maxaynu idhahnaa waar hebelow ha noqonin addoontii kimista dubtay xabadii u dambayse ka kacday markay xabadii u dambayse ka tagtay macnaha dee magacii ay heli lahayd markaa u dambeeyu ahaa taasoo kale ha noqonin markaa ilaahay tusaalaha u bixiyey kaasuu noqday tattakhiduuna aymaanakum dakhalan baynakum an takuuna ummatun hiya arbaa min umma inay ummad kale ka badantay daraaddeed ummadda faraha badan ha raacina tii yaraydna ha kaga bixina sababta ballanta a u jabinaysa ayay noqonin labada ummadood oo kala badan waa almaslaxa duwaliya waxaan maanta la ydhaha maslaxada duwaliga ama dowladaha inamaa yablukum allahu bihi ilaahay baa idinku imtixaanaya wuxuu ilaahay idin cadayn doonaa qiyaamaha wixii ay isku khilaafsanaydeen war arrinkaa waa la ysugu noqonayaa ballanta dib baa la ysugu soo noqon doonaa ka daaya wey allahu aclam